Gabadh baa waxay soo iibsatay telefoon qaali ah, kadib aabbaheed ayaa ku arkay telefoonkii markaasuu ku yidhi, Aabbo markaad telefoonka soo iibsatay wixii ugu horreeyey ee aad samaysay muxuu ahaa? Gabadhii baa ku jawaabtay, Waxaan soo geliyey qolof kofer sare oo telefoonka difaac u noqonaya kana ilaalinaya in uu jabo. Aabbihii baa ku yidhi, Cid kugu qasabtay miyaa jirta in aad sidaa samayso? Gabadhii, Maya aabe, layguma qasbin, laakiin aniga ayay i anfacaysaa in aan sidaas sameeyo si telefoonku uusan iiga jabin. Aabbihii, ma kula tahay in aad ceebaysay shirkaddii telefoonka soo saartay? Gabadhii, Maya aabe, shirkaddu ayadaaba nagula talinaysaa in aan telefoonka qolof sare gelino si uusan telefoonka nooga jabin. Aabbihii, waa tahay, qolofku miyuu qiimo tirayaa telefoonka? Gabadhii, Maya aabe, kan difaac ayuuba u yahay telefoonka, in uu jabo buu ka ilaalinayaa, ilayn haddii uu jabo waa uu qiimo beelayaaye. Aabbihii, miyuu foolxumo u soo kordhiyey qolofkaasi telefoonka? Gabadhii, aragtidayda Maya qurux mooyee foolxumo uma soo kordhinayo. Intuu si fiican u soo eegay buu ku yidhi, Aabbo macaan, xijaabkuna waa sidaa oo kale ee ku dhaganow had iyo goorba. Haddaad akhrisay soo qor mashaalla. Siina faafi haddaad awoodo. Si uu ugaadho hablaheena xijaabka xooray. Barta guduudan guji suulka kor u taagan riix waxaad noo tahay qof muhiim ah.